Professor Sodo runtii aad baad mahadsan tahay professorka markuu buugga qorayana inuu in badan hadla maaha waayo qalinkiisa hadla yes buuggan soo wada waa mahmaahooyin aan ku soo kordhiyey mahmaahii hore u jiray inkastoo oo meesha aan laga eegin aanu ka eegnay tobankii igu dhibka badnaa ama igu waqtiga badnaa haddaan kaaga sheega buugga aan soo wada xikmadda maanta waxaa ka mid ah kow garaaba isma gurto maxaad uga jeedaa professor garaabada haddaan la gurin ma isku raysa kici waaye looma kaco waad uga jeedaa hadduu qofka kici waaye dicdo kici mayso oo qof ii kaci hebel ma jirto oo isagu wax qabsan waayo ha geedka midhaha macaani hore uma dhalo maxaad professor geed hore qof imika lacag badan ku siinaya shaxaadaysa 12 cisho ka raagay fahad laba dhuuntay isma dhaamaan waa fulay labadoodiba baqaya naaga xidhay way xanaaqdaa uga jeedaa professor dee qof la xidho bal faraxsan soo hela waa maamaaya waa tii igu dhibta badnayd wax maamaha intaa sameeyay faanta qubatay furkeeda furnaa faanta qubatay furkeeda furnaa maxay ah dee haddaan bahashu furkeeda haddaan bila furtahay bay qabanay waa qubanay badan isma xidho maxaad uga jeedaa professor dee badan isxidhay waa kaasay soo haddaan la xidhmayo haddaan la xidhmayo professor waxaan ku weydiin ka dhex kale imisa sanad hawl gelisay xigmadda inta laga iyo maama dee xigmadana ma xigmad ka fuulay kuleeta adaa ku dhiibay 15 years baan daba socday sama maamaha u samacna kala sameyn lahaa dhar la maydha way dhalaalaan dhar la maydha way dhalaalaan xumaaday dhibtiisu leeyahay dhoob xumaaday dhibtiisa waa leeyahay muxuu ta arrinkaas u yahay in aad qad dhufaysaa Itoobiya sa tagaysaa safaarada galaysaa ilaa xiblood bad noqonaysaa wax lagu oranayo waa kansar barnaamijkii dhooftay in dhibtiisa lahayn professor meel fog badan ka qof dhoofay diyaar raac waa maamaha ugu qaalisan buugayga qof dhoofay diyaar raac oo muxuu raaci lahaa nin walba kabtiisa leeg waad uga jeedaa waa naga faa'iideysta intaana la dhiman maskaxahan aanu idin dalga diyaar kana maxaad uga jeedaa nin walba kabta meel ku leekay waa runta kaba ma xidhay markaad xiisaan soo kabilay bad laba islaayay cara isu geysay dee laba qofku markay laba qof islaayo cara isu gelisay waa runta kibir isma taga gabar gaaban isma gaabin ilaahay kaaga ilaahay wuxuu ka shubay ninka arreer markay isu kaajayso inay suurigii joogtay ku riyoota professor maxaad uga jeedaa dee marka yaraantaadii ma soo kaajin waa runta waxaad mooysaa suurigii lagu kaadin waa runta laga bixin daaga professor waa nagu yaraysay inkastoo aanu kaga bogan doono buugga waxaa ka bogan doontaa dhammaan bulshadan iyo maahmaahaan uu keenay professorku buuggiisa soo socda ee murtida maanta iyo maahmaahaan baa la yidhahdaa waxaan idiin sheegayaa inaad naga faa'iidaysataan oo aanu maskaxahan idinku shubno oo aan idinka shubno maxaad maanta dhalinyarta qabyaalada waashay iyo dadka ugu gudbinaysa maamahaya sameeya fakara maamahaya sameeya low samaxtu alwaqt nibaa sameeyey samee waqtiga kale waxaad sheegtay maamahaan inaad wad imise bay ka kooban yihiin maamahaan intii aad nooga taabatay kulli kuwa dabada ka sii khatarsan intaan taabtay waxay 500 ku dhawaad way u dhowdahay sayla tahay aniga haddana ka badnaynba buugana buug waa dhowr iyo 10,000 oo maamaayo oo ku jiray waxa ku jira oo kale fadhiga waa lagu fadhiistaa fadhiga waa lagu fadhiistaa kamid ah mid aad buuggaaga horliciisa ku arkay nin weyne carruur buu ahaan jiray maxaad uga jeedaa nin weyne carruur ahaan jiray meel carruur hayso ahaan jiray hadda ka eegina eega nin weyne carruur soo ahaan jiray kaas professor Cabdiqali oo ku soo boqday xalka aan ku yahay magaalada Hargeysa ee Hangol Media Production professor waqtiga ku mahadsan tahay aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa